ما مغليسا ورسمع الدين يشرفتينا ماشي أي كجرته واحد قبضان دلي وادقرنيسين واحد محي هذا لقى قاضن كرمه واحد لقى حوق كرمه أغلقيان لقى بدلن راكس أن لقسين مال مستقبل كذا شرفت هذا أنا استاجن ناقت عنقان دشوا حلاقة يابا مستقبل كذا وقبض عنقان صقير كقاضي إنا عنق دنبها هذا مستقبل سميسة أي دلين الله سمعان وعروضي كبائر الدنيا دي أقرن الله بدنا أي لصعد وحدي ليسين قبضها واننا مد والد كانوا لي منا قبضها نولي منا ويلش نولي قبضي ويلش وابا واني وكبح قبري وحاس ماشي أي كجران أديك إلهي بكرنا وحا أديك بلغذي أديبتم بدويل كقاضنا ناقت السحن أسعتهم برمي الله بقرك كبقى قبيل كينا شرفت أسجيدة هو إذا شرفتها كهليننا أبياشينها كهليننا ولالينها كهليننا من وحنولي والدك ورقبت هذا مركا إلا سقال بلود أي رنات ما هذا أركويت هلا كل من نقنيس هيا ناقرنت إنا عنق الدل هذا هذا كبائر إذا أي كنسن أي كوكرب قشاني ما أمين qof muslim oo la ilaaha illa allah oo maanta waxaan ka xumahay dhacday magaalada Tanwajeer gaar ahaan pula ICF urug yar oo saqiir oo wuxuu galabsaday aysan jirin ay habarti dhashay amse hooyada dhashay annagana lamidaha ay dishay dilida dhalista ma xumo ee dhashay dhalista ma xumo balse waxay sameysay inay soo dhigto meel qorax ah qoraxdana ay aad u kulashahay waqtiga hadda la joogana yay tahay 6 ama 6 iyo barka ilaa iyo saaki intaas dhan ay qoraxda qaraacaysi meydkeeray oo saqiirka wuxuu galabsadin aysan jirin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faadimo Yuusuf waxaan joognaa maanta halkan ICF waxaan u yimin cunug yariis oo xalay dhashay ayaa lagu diliyay oo la duugay oo meeshaan halka ICF laga soo qaaday cunug yar oo umul xalay dhashay waa dareemi kartaa xanuunka Soomaaliya bilaadanimada kuma jirto cunugaasayta dambiga gal ma laha hadii uu qaladka ka dhacay waxay fiican cunug iska xanaanayso hadda maxad gashay dambi macsiyaad gashay dambi dilaas gashay laba dhiig baad gashay taas ma nasib xumo runtii gabdhaheena waxa uu sheegay qalad waa dhaca laakiin maxad u dhacay lama dhaha hadii ka noqotay fadlan saqiirintii yar oo dilaysaan iska dhaafo hadii haddana qurux daro kul noqoto meel samcad oo fiican soo dhigo cunug nasib xumo way cunug oo qaaban hadda arkaysan sida uu ahaa war hadii anaga intaas soo marnay adiga saan yeelayso cunug halka aydaad soo martay hadii maanta lagu yeelaa adama noolaan lahayd way cunuga masaakiin waaye malaa'ig ilaahay waaye dambiyu galay malaha laakiin waxa dambiga maanta iskale reer wajeer oo dhan qoraxad fiirsiday noo hayso maxaa la dhigi qorax ma inoo haysaa maxaan abaar noo haysaa maxay baahid u sii badanaysaa faqiirnimada maxay u sii badan war dambigeena oo badane sidee u noqonayn haddaba gadaal ha loo baar hadalka gabadhaas yariista cunuga dhashay tuweyn tuyur waxay ahaataba waxa dhici kartaa reerka ayda ka dhashay inay raali keen cunugaas inay iidisto ay haysato oo koriso ina lagu qasb xalii karta habeen hata waxa jirta hooyo gabadheeda markay uur yeelato canuga markay dhish hooyada ay dili gabadh yar oo ooynayso cunuga ay dilan leh inay disho reer wajeer waa nasib xumo cunugan yariiska wax dambiyo gal ma laha ya hadda anagu waxaynu qasbaysaa inaan kacno bulshada raayidka ayaan ka socdaa ani Faadimo ninkaan ay taxaruud xafiiska carruurta ka socda booliis waad arkaysan ya maxaa la rabay ina horta gabadhaas ay cunug soo dhigayso horta ina la ogaado ay fiican tahay haddana waxa tale ilaa reer ICF waxay dhici kartaa inay gabadha meeshida ay joogin ICF ay ahayn waxay dhici kartaa inay meel kale ka timaadi fadlan waxaan ka codsanaynaa hala soo baara wiilal iyo gabdho shaqadan ha iska saaraan mas'uul sababta mas'uulna wada saaran way aniga yaro saqiir ah hadduu maanta noolaan lahaa qof qaata lama waayaan xafiiska 20 way gaaraysaa xafiiska carruurta ii sheegi doon inta canug oo la tuuray oo la korsaday maxaad u dilaysaan maxaa dhibaa geysteen fadlan waa xanuun badan tahay ani maanta wallahi si xun waa u naxsanahay waxaana la yaabayaa gabadh ayada cawad sidii ku saaxan doonto qaran kolay qabr inay biri doonoolaan ilaahay baa og iidan ma ogo hadday dhimato dambiga hore gato faasiqnimada heed oo zina gashay markii labaad haddana inay oroday ay cunug yar saqiir ay dishay والله وحنون بدن تهي وأنا ما أنت وحلا قال حوضه الرجال ما أنت إلهي عم برينا إلهي كنا قلنا نكس إنه جوداس إلهي ساقط أنا إلهي سبحان قاتل وحن كبره فاتحنا إلى مرة جوداس يد إنه قاساس إنه إلهي ساقط. فيصل عبدي وحنوش قيا واحدة عرورته وجار ما أنت أرين تنقاد بأنوحنا هاي بريها عندنا ونقصنا نقنيسه فلك عرورته سحن لو هذيك سنة هايو وحن ما أنت هذا وجونا هالكن عنجر وعندك وديك حالة ده شيء
yaa la ceejiyey wixii ficilka ama geystana ma garan karno cunugii waa cunug iska yar wuxuu ahaa yar oo hal maalin jiro marka wixii ficilka ama wixii geystana ma garan karno ilaa up to now marka as a department idaaradda caruurta waxaan bulshada u sheegaynaa inay noo soo sheegaan waxyaalaha nooca sida maanta noogu soo sheegeen arrintan wallaahi dadka hadda caruurta maanta ceejiye ama ficilkaas sameeyo waxaan ku boorinayaa inay xafiiska ay report ay keenaan noo imaadaan marka qofka hadduu cunug uu rabin waxaa jirtaa meelo institutions ilmaha aan geynaa jirtaa ama dad oo waalwishaas aan siinaa jirtaa marka ha noo soo sheegaan waxyaalaha nooca ficilka nooca daa la geysto marka anakaa garanaynaa ilmaha meel la geynayo tira ahaan maanta 15 cunug yaan bixna gacantii ku bixi waxaan siiyey dadka waalwishaas qofkii u baahan ilmaha dad waxa jira ilmaha haysan dad noocaas qaar kood waxaan geynaa meelaha ilmaha lagu xanaaneeyaan geynaa waxa la Xaliimo Macalin Geedi ku magac dheer Xaliimo Kutulo waxaan ku nool xaafadda Sunrise maantana waxaan joognaa Buulashiiq ICF meesha geela kawaanka lagu daajiyay ninka garanaya ninka aan garanaynin kulay dhigto ka maqle wallahi maanta waxaan aragnay fal aad iyo aad u foolxun oo loo geegsan karin oo laga gubta war dhalinyaro wiilka gabar kufsanay wiilka gabar wicil ka rimanay war waa hooyada waa walaasha way kula dhalatay way ku dhaxday war ayadoo xalaalaabad heli ayadoo shilin laga rabin baabad heli haddaad wadada toosneed oo muslimka aad ku imaada gabar ma waynays anigana ugu yaraan 3 gabdhood aan dhalay wiilka iga raba maanta oo Soomaali ah oo jidka toosan oo muslimka ku socdo ha ii imaada hadda markii meeshan laga tagay magacayga waa idin sheegay cawaankayga waa idin reebaa anaa ku dhisay anaa kugu biilay wadada toosan oo alalay igu imow war ilaahay ka baq war gabaray adigana samaacadaada iyo sharaftaada ha ku dheelin naagta hadda canugan dhashay way joogtaa inay xataa maqliya laga yaaba waxa la leeyahay waa gabar bari wiil lagu lugoynaya oo la leeyahay waa gabaraan dhalay ma maqlaysaa war samaacadiina iyo sharaftiina meesha ay ku jirto waxa gabadhan dhalay waad garanaysiin waxa maxay ahayd laga qaadan kara ma wax laga xoogi kara ma aqliga yaan laga bedelin drugs aan lagu siinin meel mustaqbalkaada iyo sharaftaada inay istaagin naagta cunugan dishi waxa laga yaabaa mustaqbalkeeda oo qobada cunugan saqiirka ay ka qaaday inay cunug damba haday mustaqbal samaysatay ay dhalin Allah subhanahu ugu carooday kabaa'irta adduunyada iyo aakhirada labadan ay la socoto waxaad yeelaysiin gabdhahan waanina mid waalidkan u leey midna gabdhahan u leey midna wiilashan u leey gabdhahi wiilasha waani waa ka baxay gabareey waxaas meesha ay ku jiraan adiga Ilaahay baa garanay waxa aad adiga ballaqday oo dhiibto baad wiilka qaadana naagta si xun u socoto baa rimi Allahi boqorka ka baqa qabiilkiina sharafta u soo jiida hooyadiin sharafta ha ka haleynina aabayaashiina ha ka haleynina walaalihiina ha ka haleynina midna waxaan u leeyahay waalidka war gabadhaada markay ilaa 9 bilood ay rineed maxaad u arki weyd raalla kulama noqonayso hooyo naag rinta inay cunuga dil dhaaday haddana kabaa'ir ida ay keensanin ay ku garab gashay aniga ma